gabadha khayliis soo orday marka gabadhii inay ku fujisay maagtay caadi ku dhufatay uu ku foqay way dhigaca lagu fujiyo marka ninka markuu ku foqay oo orday waa la ceersaday waxa lagu qabtay laabi markii la soo qabtay waa dhacdo naxdin iyo argagax bale waxa ay ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Xamar Jajab halkaasi oo nin juudaanley ah uu ku cunay wiil yar fadlan inta aanan muuqaalka idin la wadaagin fiidiyoga like saar haddii aadan hore subscribe u saarina subscribe noo saar gambaleelkana furo si fiidiyo kasta markii aan soo dhigno oo kugu soo dhaco la wadaag asxaabtaada si uu u gaaro muuqaalku meel dheer dadkuna uga digtoonaadaan dhibaatooyinka noocaan ah waxaa la dhahaa wiilkaada tabcaan ay kusoo gaar marka dadka say wax u dhacay ii sheegeen meesha loo qaniinay waa banaanka meel cidla oo dhismo caabidin waa iska cidla ma fahanti nin baa ceejiyay dhinacna waa alaas waa ka goostay intana ku ceejiyay xarigu soo qabtay uu ku dili rabay naag ilaahay amarkiisa banaanka soo bixaysa ay aragtay oo ku fujiweysay waxayna u fujisay dhigax marka dhigaxa uu fujisay ninka waa cararay dhalinyarada dog bursatay ninka waa la soo qabtay waa wadnay sabdhiga sirintii ay geeyeen markaan geeyne waxaa la dhahay ninkaan wax ma ka qaban karin haddaa wax ka qaban karin anagana siiyaa markii waxayna dhaheen bas ilaa beri 2 saac aan yeeynaa waa iska asii wiilka isla keena waxaa loo gudbinaa ee dhaheen maxkamadda fahmino wiilkayga adi dhaawac far badan soo gaaday ilaa xataa argagax zaid ka muuqdo meeqa dhaawac ka muuqdo dhaawac waxaa ka muuqdo halaas waa muuqantaa ma fahmino 18 qodob baa soo taray ma fahanti inta qoortaan xariga ugu yaalay iyo cijooyin iyo adigu dili rabay aniga ilaahay amarkii naaga soo baxday naagtiga ka fujisay dhigaxay uu fujisay xataa uu ku foqay waayay marka qaniisha misa waa midiyo watay misa waxyaabo kale ayuu dhaawac u adeegsaday bal inoo sheeg wuxuu watay fiiladaas kaliya laakiin dhinaca kale qaniisho waa meeshan qaniisho waa arin argagax iyo shoog ku riday ilmihii yaraa iyo aabihii dhalayba mar kale waa kan aabihii oo ka sheekeynaya sida lagu qabtay ninkii iyo sida lagu ogaaday in uu isagu waxyeelay maxaa xaqiijinaya inuu isaga qaniyo oo lagu dareemayo waxaa xaqiijinaya oo nimanka daaweeyeen ee noo sheegay inay qaniisho tahay xataa naag gabar ka fujisay halkaas inuu ka haysto ujeedin antana ceejo uu ku hayo cunug hadlo faraq u dhaay ninka dhibaatada noocaas geystay adiga ma aragtay aniga ma arkin laakiin wuu xirnaa markaas saldhigo ku xirnaa laakiin ani waa maqnaay mar dambe oo saldhiga ay maaday xali dhaa bari inoo laakiin ninka inuu xiriyo aan cadeey karaa laakiin nin noocee oo ahay marka bal noo sharax waa qof iska caadi su'aal iyo shaati wato oo labisan hadda aragti kana juudaan leeyahay taamadiis laakiin saada arkay ninka dad cun waay baal waay hatta meesh markaan geeyna cunug oo dhaayay sheegay aan laakiin ma arkin kule bari aan ku doonaa haye marka wax dhaqtar ma geysay wiilka dhaqtarha waa geeyne cirbadooyin iyo daawo iyo 18 qodob la tolay cirbadna xaga loo soo dhuftay intan door wax saasi sheegteen adiga loo baahan bari soo maqnaadaan bari dambe imaadaan waayo marka wax sun ah oo kale miyay sheegayaan ama idin sheegay dhaqaatiirta in wiilka uu ku jiro jirkiisa suntii iyo waxaas dhan waa weydiinay wax jirkiisa hadda sun ku jirta ma sheegin wiilkiisa okay waay laakiin bari soo maqnaada maalinta khamiis ay keenayaan wiilka marka xaafadda xilliga ahayd marka la qaniinayay banaanka muu joogay haddii uu banaanka joogay muxuu ka qabanayay ma wax baa loo dirsaday taas sharaxaad naga sii cunigu wax baa loo diray markuu suuq soo laabtay banaanka laamiga uu ka imaaday soo galitaanka waay luuqa markuu soo gal rabo maxaa la diray ninka madaxu iga salaacay oo cunug weyn waay cunug ilaa 8 jir waay ma fahanti madaxu iga salaacay markaan ka cararna oo kala tuuray oo dhaay markaas uu igu fadhiisay waa qayliyo oo ceejo igu qabtay halkaas oo igu goostay oo dhaay fahmino saasi waxa ay dalkeena ka ahaan jirtay maqal iyo sheeko juudaanley ayaa dadka qalata balse maanta waxaa la hayaa muuqaaladii iyo markhaantiyadii iyo dhaawacii soo gaaray ilmahaasi 8 jirka ah oo ka sheekeynaya waxaana rajaynayaa in dad badan ay feejignaan doonaan mar kale waa kan aabihii oo ka waramaya dadkii u soo gurmaday iyo sidii lagu qabtay ninkii waxyeeleeyay wiilkiisa dadka xaafadda maxay qabteen oo gurmad ay u sameeyeen yaa badbaadiyay wiilka noloshiisa wallahi gurmad weyn bay badiyay wiilkan kaliis ma la wiil iyo wiil kala jireen adiga ilaa xataa saldhiga iligayeen nimanka
ay la qabteen caddeen weyn alaga ninkaas inuu baal yahay oo dadku cun yahay caddeyntiis waa iska muuqataa maano dhowr meel oo qaniye sidii baalka dadku cunay camal uu cunaa halaas way maqneed cunugeyga meesha godba ee 18 qodob aan tale laakiin inuu baal yahay xataa nimanka oo wax soo daabay waa sheegayaan ma fahmino laakiin jirkiisa wax saas ma gaarinayaan dhiiggiisa wixii dhan waa la baaray marka waxay dhahaan bari soo maqnaa bari dambe keen markii aad la kulantay wiilkaaga dhaawacan ka muuqda iyo in lagu sheegay in nin laga fujiyay maxaad dareentay wallahi dhibaato fara badan aan dareemay qofka bini aadamka wax dhal wax walba dareemaa mugtaa ani dhan waa iska dhacayaan ani waxaa is dhahay xataa gaariya jugsi maane isma lahayn xataa waxaa qaniini iyo bahala cuni isma lahayn markii cunigaada tabcan waay dhiiga gadaayin dhiis dhan dhiig waay waxaas dhiishay isma lahayn marka ani saldhiguu joogaa nin mooto jug ku sii iyo wax digaarsii la malaynayo warnik warba ma haysid miya cunigaada waa la cunay markii la markaas la shalay noqoto marka dhacdadan marka xaafadan ka dhacday dadku way isweydiinayaan waa xaafadee sidoo kale ma markii ugu horeysa arrintan lagu arko dhacdadan wiilkaaga qabsatay waxyaabaas waa la sheegaya laakiin ma aan aaminsaneyn laakiin maanta aniga bay u dhacday maano xaafadan waxaa la yidhahdaa xaafadda Xamar Jajab oo gaar ahaan loo yaqaano Gudi fahmin marka dhacdadan dhacda iska jirtay waa maqli jiray been baa mood jiray laakiin maanta aniga islaamaano dhibaato fara badan aan dareemay way hadda sidaad ii sheegtay dawladda ayaa gacanta ku haysa gaar ahaan taliska booliska ee degmada Xamar Jajab ninkii eedeysanaha oo wiilkan qaniine sida aad sheegteen maxaad ku codsanaysaan dawladda wallahi waxaan jeclahay kaas in cadaalad la marsiyo xukunka uu leeyahay in la marsiyo waajib ah fahmin oo ani kaliya ilmo walaalayn ilmo badan oo cunaa laakiin dadku weyn shaqo kuma laha ilmaha yar ka yar aad u jecel yahay xataa meesha markii la geeyo carabkooda malabsanaya allah marka waxaan dawladda ku codsanayaa ninkaas inuu sharciga wuxuu waafaqsan yahay in loo qabto haddaba daawadayaal sidaad arkaysaanba waaridka wiilka yar dhalay iyo wiilka yarba waxa ay ku sugan yihiin xaalad shock ah ama argagax ah fadlan fiidiyowga sheer dheh si uu u gaaro muuqaalkan meel dheer dadkuna ay uga taxadaraan ugana digtoonaadaan dhibaatooyinka nooca kan oo kale ah oo ku dhacaya ilmaha yaryarka ah si ay waalidiintu indho gaar ah ugu yeeshaan ubadkooda fadlan nagu soo biir haddaadan hore noola joogin fiidiyowgana like saar si uu u gaaro muuqaalku meel dheer halka aad nagala socotaan waa Sahra Sahan channel inta aan fiidiyowgan mid lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadku codsanayaa ninkaas inuu sharciga wuxuu waafaqsan yahay in loo qabto codsanayaa ninkaas inuu sharciga wuxuu waafaqsan yahay in loo qabto codsanayaa ninkaas inuu sharciga wuxuu waafaqsan yahay in loo qabto